الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شنية طبناد يا كتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. وحال كان لقى جوابيا ولبا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكجوابيا إشكال كلا أما السؤال كلو يدون التمد رسولك حولي صلى الله عليه وسلم دمر كمركو كهليي waxaan arkay inii ra'aytu kunna akthar ahli nnaar, yacni dumarka inaad tihiin dadka ugu badan oo naarta gelaya. xadiid kalena rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calay wasalam ina aqala saakini aljanna annisaa, dadka ugu yar oo jannada degan waa dumarka, ayaa mar kalena la yidhi. xadiidkaasu imaam bukhaari iyo muslim labada xadiis markii laisku daro waxay tusinayaan in dumarku ay yihiin dadka naarta ugu badan ama jannada ugu yar ay yihiin. waxaa soo arooray xadiid kale oo saxiix ah, bal u fiirso, inuu nin kasta oo jannada gala inuu helayo 2 dumar ah oo kuwii adduunka ah. intaan xurulciinba la aadin 2 dumar ah oo adduunka ayuu nin walba zawjataani min nisaa'i dunya ayuu leeyahay. arrintaasna waxay ku tusinaysaa inay dumarku yihiin akthar annaasi fi ljanna, inay jannada iyagu ugu badan yihiin bay ku tusin. balad u fiirso meesha marka waxaa kaaga soo baxay, haddii layidhi nin kasta oo jannada ku jira 2 dumaruu leeyo kuwii adduunka ah, xaggana lagu yidhi naarta iyagaa ugu badan, xaggana waxaa muuqata inay jannada ugu badan yihiin. sidee loo jamcinayaa adilada? culimadu way isku khilaafeen towfiiqa iyo jamcinta axaadiista, laakiin qaar ka mida waxay yidhaheen dumarku waxay ahaanayaan kuwa ugu badan jannada, kadaalika naartana iyagaa ugu badan. labadaba dee adilada xustay bay yidhaahdeen. alimaam qaadi ciyaad isagu wuxuu leeyahy annisaa waaba waxay yihiinba alla dadku abuuray oo bani aadamkaabay ugu badan yihiinoo dee xaggiyo xaggaba iyagaa ugu badan. khayr kale waxay yidhahdeen culimada kamida dumarku waa akthara ahli naar, dadka naarta marka hore galay ugu badan yihiin, waxayna noqonayaan dadka ugu badanna jannada bay noqonayaan. markii lagu daro xurulciinta ayay badan yihiin, marka majmuucoodu markaasu ragga ka badan baa la yidhi. qolyo kale waxay yidhaahdeen dumarku iyaga ayaa ah akthar ahli naar, dadka ugu badan marka hore bilowga wey, laakiin dad badan baa markii dambe laga soo bixinayaa naarta. waana masale saxiixa inaa dad badan naarta laga soo saarayo, oo dadkan cusaatu bani aadam, dadkan caasiyiinta dembiga badan, mashiicada rabbi bay ku jiraano alla kuu rabana dee cadaabkuu gelinayaa, laakiin ku waari maayo. qof ahlu iimaana man qaala laa ilaaha ila allahu nafacatu yowman min addahri, waa xadiis saxiixa. laa ilaaha ila allahu qofka ahlu tawxiid ba hadduu ku dhinto insha allahu tacaala haddii xitaa naarta uu galo ku waari maaye, marka dambe waa laga soo saaraya. marka ujeedada waxay dhahen jamaca waxaa lagu jamcin adilada. dumarku markan rasuulku uu sheegay uu leeyahay naartaad ugu badan tihiin waa marka hore, oo dee rasuulkaa sheegay oo 2 sifo waa kii ku sheegayey. ninka iyo nicamta uu idiin galana waad ku kufridaan oo wuxuu yihi ma sheegtaan, lacnadana waad badisaan baan fili inuu xadiidku labadaa ahaa sababtay ugu bateen. laakiin marka dambe oo laga soo saaro ayay dumarkii noqonayaan kuwii jannada iyagu ugu badnaa. marka jannada sidaas marka dambena ugu badanayaan. su-aal kaloo iyaduna muhiimaa jira oo xaalada gabadha mu'minada ee adduunka ka timid, mu'minaadka gabdhaha mu'minaadka ee adduunka ka yimid ayaa waxaa la yidhaha afdalu min xuurlciin. waa masale iyaduna cajab badan. xuurlciintan aada aragnay ee maqlayna ee dembiba aan lahayn ee jannada lagu abuuray waxaa ka fiican oo ka fadli badan gabdhahan muslimaadka ee adduunka jooga haddii jannada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku marti qaado. sababtuna waxaa weye almar-a saalixa, haweeneyda wanaagsan oo min ahli dunyaa, dadka adduunka aad jannada way gashay. geliddaa jannadana waxay ku gashay waa abaalmar ilaahay uu ku abaalmariyay alcamal saalix iyo karaamo rabbi uu siiyo xagga rabbi ka timid, oo salaaxeedii wanaageedii alla ku siiya sababteed ayaa maaragtay allana jannadiisa ugu gartay. amaa xurulciinta waxaa la yidhaha iyagu
waxa weeye dad la abuuray, waxaa loo abuuray min ajli khayriha, si dad kale in yaa dartooda loo abuuray. abaalmarna waxaa looga dhigay mu'miniintii ragga ahayd oo camalka wanaagsan adduunka ku sameeyey ayaa iyaga lagu abaalmariyey. marka waxaa la yidhaahdaa waxaa aada u kala fog labo qofna camalkiisii saalix ahaa ilaahay sababtiisa jannada ku soo siiyey, qofna loo abuuray qof kale in lagu camalkiisi oo camal fiican sameeyey lagu abaalmariyo. sidaasay uga fiican yihiin gabdhahan kuwii adduunka. ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu yihi alladii yadharu lii, sida ii muuqata ana nisaa addunyaa, dumarkii adduunka ayaa ka khayr badan dumarka xuurulciinta, xataa fi sifaat daahira, tilmaamaha oo dhanba ama kuwa daahirka iyo kuwa kaleba iyaga ayaa kaga fiican. haddii marka gabdhow aada shaqaysataan oo ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa inagu karaameeyo, alla idiin garto, xuurulciintan idinka ayaa ka qiimo badan oo ka wanaagsan insha allahu tacaala. wallahu aclam.